nabadgelyo saaxiibayaal waa mar kale ii muuqaaladiinii aad ka daawan jirteen barteen cawiif fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir haddaa hore noola joogteen share like maantana waxaan tataaban doonaa sheeko beryahanba social media aad u dhex socotay sheekadaasi waxaa waaye habboon nuuro muqdisho rabtay inay ku qabsata show marka wixii aan ka dhahnay iyo waxay say idinala tahay ayaan idinla wadaagi doonaa aan idin xasuusiyo mar kale fadlan haddaad ku cusub tahay janalka subscribe dhe like na saar aad ayaad u mahadsan tahay gabadhaas ayaa lagu eedeynayey inay ka mid ahayd fanaaniintii ee qaaday heestii ahayd milyan xamar cadow ka daran si kastoo ahaataba ma fiicnaan in gabadha lala xifaaltamo maadaama ay haween tahay inay marna tiri milyan xamar cadow ka daran mar labaadkina ay imaaday oo ay rabto inay bitaan ku duubato waxaa waaye ayadaaba intaas aqligeeda u dhan yahay ma ahayn in lala xisaabfaltamo marka beryahanba sheekadaasi ayaa aad looga hadalhayay social mediaha dadka reer somalilankan ayagana waxaa la sheegay ama ay aad ay barta facebooka ay ugu soo daabacayeen in fanaan kasoo jeeda magaalada muqdisho ama soomaaliya aas show damba ku qabsan doonin caasimadda somalilan ee hargeysa ama agagaarkeedaba marka gabadhaas horta waa la xumeeyey aan dhihi karaa maadaama waxa ay haween iska tahay caqligeedana uu ka badan waayey inay marna caysay marna ay inay show ku qabsato u soo baxday ma ahayn laga kala kiciyo waxaa la yidhi ama loo joojiyey showgeediina cayaalka magaalada muqdisho oo qalalaasay ama buuq ka dhaliyey iyo laamaha amniga oo amniga ilaalinaya intaas u iskaashaday inkastoo fanaaniin la sheegaya ayakana oo sifac u qayliyey oo diiday in showgaas la qabto marka muuqaalkii gabadiisa ayaan siimanaynaa saaxiibayaal haddaad nala soo gaartay ilaa dhammaadka muuqaalka aad ayaad u mahadsan tahay subscribe dhe like na saar intaan kulmayna muuqaalka xiga waxaan idin rajaynayaa nabadgelyo